السلام عليكم دمان waan salaamay Soomaali meel bay joogan waxaan rabaa si qaas ah halka ugu salaamo ardayda sanadkan soo qalin jabinaysa forka ah anigu uu siiso fariin aad iyo aad muhiim u ah taasoo qofkii qaato aad u anfici doonto fariintan oo ah ciwaankeeda sideen ku noqon karaa arday ku guuleysta imtixaanka sida ognahay maalmo muddo kadib waxaa imaan doona examkii ugu dambeeyay shahaadiga ahaa dugsiga sare marka waxaan rabaa sidaas darteed in ardayda la wadaago fariin dhiirigelinayso taasoo qofkii qaatana oo examka gudbi doono dhibco fiican la goosan doono taas intaan u galin waxaad in muddo soo baranayseen iskool laga soo bilaabo koowaad ilaa 12aad laga gaaro fasalka dugsiga sare marka waxaa la rabaa hadda waxaa la gaaray xeelkii macnaha ugu dambeeyay dugsiga ugu bixaysay haddaad si fiican u dadaasho shahaadadaada waxaa kusoo qormaysa dhibco fiican haddii aad dadaalin laakiin oo maaragtay imtixaamka aad daarin isbuuc imtixaamka bas aad isku daydo inaad imtixaamka aqriso dhibcaaga way liidanayaan waalidka kaa niijaba adna waa niijabaysaa marka sidaas inta loo badbaadi lahay waxaa la rabaa in hadda laga bilaabo markuu videoon soo gaaro aad aragto inaad bilowdo akhriskii imtixaamkii iyo diyaariskii maadaama ay imtixaamka badan yihiin oo 10 maado camal ku sugayaan inaad dhexda sii xirato oo waxaa la rabaa dadaasho waalidkaana dhibca oo ku farxa aad macnaha dhibcaadi aad ku farxata kaystid waalidkaana aad farxad la wadaagtid marka taas hadaan kasoo gudbo qaabka wax loo akhrinayo uu fudud hadaan la wadaago waxa waaye ardayda badankood waxay sameeyaan buug bilow ilaa dhamaad inay xifdiyaan isku dayaan taas way adkaanaysaa koodan buug oo intaas beja way adagtaa in intaas ku xifdisid laakiin qaab uu fudud waxa ku siinaya aad ku diyaarinayso buug kasta waxaa la sameeyaa SQRT barnaamij la jiro qaacida formula ah barnaamij sida raacid way fududahay inaad buugaas in xifdiso waxay u taagan tahay summary macnaha barnaamijka imtixaamka markii buuga dhamaadkiisa waxa ku arkay summary questions summary-gaas macnaha akhrinaysaa kadib questions aad ka diyaarinaysaa questions marka ka diyaarsid oo adiga note-ka ku diyaarsid question-kii hadana aad akhrinaysaa iska dhageysanaysaa buugaasna way xifdisan tahay laakiin hadda dhayd buuga bilow ilaa dhamaad way xifdinayaa waxay xoogaa way adkaanaysaa baashaas oo kale marka qaabkaasna waa qaabka loo akhrinayay waxaan kaloo rabaa inaan fariintan la wadaago qof kastoo macnaha imtixaan galayo fanfoor kaliya ma ahan fasalka hore ha ahaado inuu dadaalo midda jirtina waxay tahay hal qof kaliya wax ma diyaarin karo in group saaxiibka ama asxaab aad isku imaadiin aad imtixaanka diyaarisiin way fududaanaysaa laakiin kaliya qolka inta gashay imtixaanka akhrina way adkaanaysaa su'aalaha ka hor imaanayo maama carabiga jirto cilmi been talimid dhahayso midaas darteed in laga faa'iideysto oo jirtaayo group wax loo akhriyo hadda ardayda badan way sameeyeen oo hadda masaajidda qaar waxa ku arkayay in ay ardayda sanadkan fanfoorada mid qof kasta inta taam samaystay maalin kasta habeen kasta diyaarinaya imtixaankii laba buug masaajidka ku akhrinayo qofkaas waa qof si diyaar garoobay oo la dhihi karo imtixaanku dhibco fiican oo keenaa oo baasi karaa natiijo fiican oo la saadali karaa laakiin qofkii iska jiifto markii imtixaankii la yiraahdo sabtida la gala buug soo kala baxsho oo ka niyijaba waxna ma diyaarinayo sidaas darteed taas si looga hortago video markuu soo gaaro horta share garee waxaa kaloo sameysaa asagana ku dhaqan oo macnaha tixgeli oo videogan sameey marka anoo barnaamij ku dheeraanayn midda jirta waxaa dhici karto kale adoo dugsiga sare dhameeyay dhibca yar haysto in milxa soo baxdo dibadda ah milxoonka dibaddana badankooda dhibca fiican qofka inuu haystaa shardi ah waalidka adoo milxa kuu soo helo adina dhibcihi kaa yihiin nijab aad u weyn waaye way nijabaysaa dad waxaa arkay dugsiga sare dhameeyay shahaadadii haysto haddana dhibcoodii ay yartaa markay milxa usoo baxaan shahaado kaloo buug samaysanayo dhammaan waxaasna waxaa uga hortagaynaa inaan inta dadaashiin hadda waxaa arag 2 isbuuc camal hartay 2 isbuuc dhex xiritiin inkastoo la rabo inaad hore isku soo diyaarisiin 2 isbuuc video markuu soo gaar laga bilaabo imtixaan diyaaris bilow buugana saa ku sheeg oo akhri oo asaga dhan ina akhrisaas ku dayin summary akhri summary-gaas question ka diyaari question-kaas isku dhigayso xifdi sidaas ku fududaanaysaa mar rabo inaad ku dheeraado aad u maasantihiin